furana waa hesheen furahaasi wuxuu u baahan yahay in la sii wado wax walbana waa gacan ku hayn sida xigmad hore u tidhi aadanuhu wuxuu ka kooban yahay 3 waa jismi ama jirka qofka ruuxda ku jirta oo nafta ah iyo caqliga ku jira caqliga ku jira waxa lagu kabaa waxbarashada oo ah tan aad maanta furaheedii hore hanateen talabaad waxa weeye jirka waxa lagu kabaa exercise ama dhaqdhaqaaq hadday tahay nafaqo hadday tahay caafimaad inaad u raadso hadday tahay nadaafad inaad u raadso iyo dhammaan waxyaabihii kale jirku u baahanaa saddexaad waxa weeyaan nafsada oo u baahan in camal saalix ah ama cibaado lagu kabo mar walba saddexdooduna waxay u baahan yihiin in la joogteeyo mid maalin ama daqiiqad u baahan in laga tago maaha marka dardaarankaygu waxa weeye waxbarashadii furaheedii koowaad baa hesheen halkaa ka sii wada 700 arday iyo kumaankumka kale ee ka baxay sii maleeyinka waxbarasho sare sii raadinaya ama u sii socdaba waxaan leenahay hambalyo xafladii 9aad ee ardaydu ku qalin jabinaysay mar saddexaad iyo mar labaadba hambalyo leen xilliga yadii ama waxbarashadu sida way ka yaradtay insha Allah waxaan rajaynayaa in internetka wax walba laga heli karo maxay aad chance u heli karto in aad dhaqdhaqaaqo sidii hore waxoogaa ka wanaagsan yahay waxaan rajaynayaa ama ardayda kula dadaamaya dhigata inka ama kuwa qalin jabiyay doonaya inay sii wataanba inay iskaashi muujiyaan oo ay ku adkeeyaan inay wada shaqeeyaan arrinta kale oo dambaysan ka hadlayo waxa weeyaan siimad waxay sumcad ku leedahay xaqiiqiyan suuqa iyo bulshada dhexdeeda haddii aad iminka baxdo oo aad magaalada tagto xafiis kasta ama goob ganacsi kasta ama hay-ada ha ahaado ama urur gaar loo leeyahay ha ahaado ama urur bulsho ha ahaade waxaad ugu tegaysaa qof siimad ah qoyskaas siimad ee sharafta leh ee qiimaha leh ee haybtoodu siima tahay waxay idinka doonaysaa inaad sumcaddii sii xoojisaan qaybtiinnii wanaagsanaydna aad ku soo biirisaan xayaabatirka iyo xumaantana aad ka ilaalisaan ardayda cusub ee kusoo biirtay ayaan la hadlaya gabagabadii waxaan leeyahay ilaah waa mahad iskale waxaan u mahad celinayaa dhammaan ardayda aan codkooda ku hadlayana waan ka raali gelinayaa haddaan horaan loo sii sheegin balse codkooda inaan ku hadlo waxaan xaq ugu yeeshay inaan ka mid ahay ardaydii ugu horreysay ee siimad ka baxday marka waxaan idin leeyahay guusha waxa gaadha qofka aan daalin ilaa uu qabriga ka tago gacmana wada jir bay wax ku gooyaan waddankanina inagu ina sugayaa garab iyo gaashaan inaga rabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadda ka dambeeya maalinta sabtida oo taariikhdu ay tahay 30 bisha wixii lagu gaaro shahaadooyinkiina waa qaadan kartaa xasanan fardeedii kaga saarnay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa marka sharafta kala duwan ee hay-adaha iyo maamulada kala duwan ka soo qayb galay gaar ahaan jaamacadaha muqdisho oo magaalada muqdisho oo kala duwan oo nambarkooda aan soo koobi karno halkaan ku wada wacnay shirkadaha asxaabta dadka ah oo wejiyadooda halkaan aan ka aragnay maamulka jaamacadda simad waxaan rabaa inaan si gooniya ugu mahad celiyo guddiga nabadnabada oo runtii xafladan aad aragteen 6 bilood laga shaqeynayay marka hadday isla ku tahay hawf ma ahayn waxaan rabaa inaan mahad celiyo fanaaniinta weriyayaasha idaacadaha kala soo qayb galay maantay oo ay tahay 28 November 2013 xafladda qalinjabinta jaamacadda simad intaasay noogu eg tahay waxaa hadda ka dambeeya aad u fasaxan tihiin inaad masawirada qaadataan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عبد الرحمن محمد حسين عبد الرحمن عداء ركتر كجامعة سمت آدي أيوم أتسيهاي ما أنت رنتي ومالين أو تاريخي وآدي أدوي ومحامك على حصوصتي هراء يبدأ ما أنت جوك أنت بقول مسي وايه وأنهم بليون يا دمان بعض سمت سجارة اللي يرى ما أنت أفرد قلجبين جود الجوجا ومالين والبا أنا ترى كلا سومرين ما أنت أي تاي ما أنت كلية محوها حفلة سدا يسوي جودي دونان في رلا هذا مو كاميرمان بري مركز محمد هذا ماستر PhD يا كقل جبين ساي ما أنت كم معنوي والباب كي محمد هذا لقى جلاي محوها سدا فقرا أراد سمة إلى منبع المعرفة والحكمة يعني الباب كي لقى جلاي ما أنت تقدر لأن واحد كذا بيقول نقوم مسؤول تجري لهين ما أنت هذا الباب كله منك وحين الله دمان وحين الله هاي همبلي إذن الله هاي أبتدأ قل الجبين يسبوا دهان ما ملك يا ملاحظة مع جامعة السمت وحين الله هاي همبلي إذن كنا هنا دمان توقف كان سوق قرتين آدي أو وحسوس آدي أو ومعان هايدي أستاذ حسن بدوي أنتي وكذا واجهي أو أنتي محوها إن ير أو كمدة هردنكي iyo maxaan ku raayay la tafaaratankii in la furaahay macadka simad berigaas kamid ahayday runtii waad qiyaasi kartaa ayadoo maxaan ku raayay muqdisho hawadeeda sida ay tahay la garanayo maxaan ku raayay suuqa bakaaraha dhaxmarkiisii iyo kasoo lugayntiisii gaari gacmeedkii muxuu ahay siday alaabta ayadoo dhinacyaha iyo la dhicin oo alaabta aan jabin ilaa alaabta soo sheegaystaan huday يعني جبل يعني عندنا إلى محوها اللي كان حافظ محوها البركة أو مركز معك ولقوا باللعبة الوفرة معك الجوري رسلنا إن شاء الله والدجال لو قلت لك عليه والدريشريس أي ضبيه أو إفتين كيس إلا يراي مركز لسه يبغى لو قلت لك عليه أي محوها لقوا باللعبة أو إفتين لو قلت لعبة إسكندي برنامج آدي أيام ربع إن هالكان روح حصة dadkii asxaabta ahaa ee maalintaas iyo maalmihii ka horreeyeyba nala soo shaqadaan isla bilownay ustaad xasan cabdulle nin la yiraahdo oo ka mid ah muxuu ahay mas'uuliyiinta simad yaa markii ugu horreysay yacni sheekada macadaa la samaynayaa simad la yidhaaho aniga horta soo gaarsiiyey maalin maalmaha ka mida oo aan isa soo raacnayna waxaan u wada nimiday ustaad faarax cabdulqaadir iyo cabdulkariim iyo xasan badawi ومال وضع فردية حفيظة إيو الله ونحرسته استدعوا بعده واسنا محوها دين آدي قيمة بدنا الله ونحرسته محاكونا هذا أها مركا وركي ماشيس عن كبل اللوني مالين تصاب باللوني ما أنت ماشي عن الجوجة مركا وقرب بتاع وقبل يارك يلا صوم مريرونتي ظروف آدي بدن سيدا أي أهاين مالين تصرفتي على القياس الكريم يي أهاين لكن هذانا 6 نوفمبر 1999 maalintii rasmiyan loo furay macadkaas maalintaas ay ahayd arba ayadana xusuus leh inaan halkaan ka xuso macallinkii ugu horreeyay ee jaas inta qaatay muxuu ahay macadka simad asnaa sabuurda istaaga wax ka dhigo ustaad Cabdullaahi Faarax istagana muxuu ahaa aad ilaa maanta كنا ولي جوجا محوها هاي مع جامعة أو معلمين تي مسؤولين جامعة ولي كسيمدا مركب كوميتمنت أنت على أجداد كلها أي سبب أوها أو محن كورا داي دبتاعنا شاء مارتاس إلى ما أنت ولي محن كورا داي سيد دبتاعن أو كعنت كسيهية أو مركب يعني ما هو كستو مركب لو استاجو أو كوميتمنت ليفل كذا للجليانة محوها هاي ومردالي نقول إساسي دارو كذا markaan dib u fiiriyo taariikhdaas iyo jaamacadda simad maanta meesha ay marayso aad iyo aad waxay iigu dhiirigelisaa dalkana in isbeddel laga keeni karo oo muxuu ahaay lagu guulaysan karo in isbeddel laga keeno isma barbar dhigayo Soomaaliya iyo simad waana kala weyn yihiin waana kala muhiimsan yihiin challengeska iyo taxaddiga yaalahayn waa ku kala badan yihiin laakiin mabda'a wixii la bilaabo ee la daba joogo
in muxuu ahay marka dambe isbeddel laga keeni karo oo sida saxa iyo niyadda sare lagu daba joogo lagu daba taagnaado ayay maxaan ku idhahdaa daliil u tahay. intaas kadib waxaa laga dhawaajiyey hay-ado iyo shirkado maxaan ku idhaahdaay wax badan la soo qabtay ama hadda la haya jaamacadda simad oo qaarkood bilowgii ilaa hadda weli jaamacadda maxaan ku idhahdaa la taagan sida shirkadda emeco engineering oo cambaska ugu horreeya oo weyn oo hadda simad ay taagan tahay markii ugu horreysay bulkeetiga ugu horreeyay dhagaxii ugu horreeyay dhismihiisii sameeyey ilaa maantana horumarka ay jaamacadda samaynaysaa wax badan oo ka midana voluntary ugu sameeyo oo maxaan ku idhahdaa aan jaamacadda aan qarash garayn aad iyo aad ayay u tahay. waana uga mahad celinayaa wax lagu faano associationka ama saaxiibtinimada ay la leedahay shirkadda ameco muxuu ahaay jaamacadda simad. sidoo kale waan u hambalyaynaya waan uga mahad celinayaa shirkadaha xawaaladaha ee maanta halkan looga dhawaajiyay magacooduna uu yaallo. laakiin waxaan rabaa inaan shirkad aanan maanta hadda halkan aanan uga jeedin laakiin runtii aniga xusuus gaara ii leh. يعني waa taqaanaa duruufaha dalkeena baryahaas hore iyo in badan oo ka mid ah maantaba inkastoo wax badan xalismeen waxaa ka jiray conceptiga la yiraahdo mar walba inaad self contained wax inaad samayso haddaad rabtid self contained wax walba inay ku dhan yihiin biyahaada adiga keenso korontadaada keenso security-gaaga waardiyahaaga keenso maxaan ku rahaa macallinkaaga wax walba adigu keenso yani wixii public-ga ahaa oo dowlad inay iyo dalku inuu ka saacido la rabo institutionsko dhan yaa maqnaa korontada iyo biyaha iyo amniga waxay ka mid yihiin waxyaabaha dowladda laga eegayo laga sugayo inay dalka qabato. laakiin markii aanay jirin oo saasay noqotaa simad wuxuu ka mid ahaa markaa meelihii ayadu amnigaaga iyo biyahaaga iyo korontadaada iyo waxaaga raadso matoor yar oo maxaan ku idhahdaaye duug ah uu soo gadanay ayaa noo yiilay maalin waa naga damaa maalin waa noo kacaa. waxaan rabaa marka inaan inta ka xusub shirkaddii ugu horreysay ee matoor cusub oo bacdiisi ah yacni ku kaalmaysay macadka simad oo ahayd shirkadda hormuud وأنا أيضا xusuustaas quruxda badanna inaan u xusuusto oo aan u mahadiyo. sidoo kale dalka ayada oo fursad shaqo isa siina aanay jirin oo nin walba wiilkiisa iyo midkuu adeerku u yahay midkuu abtigu u yahay oo shaqada siiya haddiiba shaqo ay jirto dowlad loo shaqeeyana aanay jirin aqoon lagu tartamo iyo maxaan ku idhahdaa competition la galana aanay jirin. waxaa jirta shirkad ayaduna bilowday oo tiri intaasoo vacancy naga bilaaban waa loo tartamaya. jaamacadda simad waxaan rabnaa ardada idinkugu fiican inaad usoo propose garaysaan arrintaas. waxay ahayd shirkadda nation link oo ayadana markii ugu horreysay in aqoonta loo tartamo oo qofkii aqoon la meeshiisa la geeyo ma sahlanayn resistance badan iyo maxaan ku idhahdaa adkaysi badan oo yani shaqaalihii hoggaanka oo shirkaddu intaasuu raalli ka ah laakiin shaqaalihii markaas shirkadda joogu arkay dadkan cusub ee wiilashan iyo gabdhahan dhallinyarada ah ee shahaadada sita ee maxaan ku idhahdaa booska idinku ciridhinayo oo bal dareen yani ah uu jiray oo xataa soo dhoweyn badan aanay kala kulmin. laakiin madaxda shirkadda iyo dadkii markaasi simad ka baxay ee meesha tegey dadaalkii ay sameeyeen ayay ku guulaysteen inay ka mid noqdaan madaxdii shirkadda ee markaas iyo dhallinyarada ee shirkadda qabatay. markaasna waxaa laga hadlayay dibloma ahayd bachelorna ma ahayn masters degree-na ma ahayn aqoonta lala'aa oo la raadinayo berigaa laga waxayna waxay ahayd dibloma 2 sano oo dibloma ah wiilka wata ama gabadha wadata ayaa waxay ka ahayd. taariikhdii intii ka dambeysay waad ogtihiin shaqadaas way bilaabatay shirkadaha dalkoo dhan inay advertise gareeyaan shaqooyinka muxuu ahay vacancy-ga oo bannaan oo loo tartamo mar walbana ardada jaamacadda simad ka soo baxda ahayd meesha ay ka geli jireen 10 boosaa la advertise gareey 7 reer simad noqota ama 8 reer simad noqota yacni iyo wax la mid ah. dadaalkaasi waxaa iska lahaa dhallinyaradii soomaaliyeed ee runtii kala duwanaa ee jaamacadda simad waagaas macadka ahayday hadda jaamacaddaa dhigatay. waa arrin kaloo aad iyo aad u qurux badan oo lagu faana maanta jaamacaddu inay leedahay wax badan oo facility ah dhulay leedahay kambaska cusub oo 10 kun oo arday waxbarasho iyo degaanba u noqonayaa laga hadlayaa. kuwa hadda jiro 3 kambas magaalada muqdisho ku yaallo dhexdeeda oo post graduate muxuu ahay lagu bixiyo ayaa laga hadlayaa. waa wax weyn laakiin waxaan rabnaa dhallinyaradu inay ogaadaan waxa qurxanay hal maalin ma dhashaan mana bilowdaan. inaad markaa ugu tala gashaa markaad fikir intaad la timaado aad fikirkaas rabto inaad meel mariso inaad dhib iyo cidhiri iyo culays badan aad u marayso. maanta waxaa jooga
madaxda jaamacadda simad ka mid ah oo ardadii simad ka baxdana ka mid ah dad iyaga oo mushaar qaadanayo ee meel ka shaqeeya ka soo tegey ee mushaarka u qaadanaya mid ka yar inuu simad ka qaato u yimiday oo maxaan ku yidhahdaa meesha shaqo ka bilaabay danayn uu danaynayay nooca iyo bahda iyo familiga iyo cultureka simad ka jira iyo mustaqbalka muuqda ee horumarka ee ka soo muuqanaya markaas muxuu ahay simad raggaasi maanta haddii meeshii ay joogaan ay u xilan lahaayeen oo xoogaaga yarkaa lacagtaa dheerigaa berigaa simad aanay bixin karin ay u xilan lahaayeen runtii maanta horumarka ay gaareen ma gaari lahayn maanta waa masters degree waa PhD waa madax muxuu ahay aad iyo aad muxuu institutionska dalkan ugu magaca dheer ugu qiimaha badan ku jira haddii laakiin maalintaas $20 $30 $50 dheeriga intuu u xishay meeshiisa iska joogi lahaa kuwii joogay weli meeshii iyo meel u dhoway joogaan marka isbeddelka nolosha inaad isbeddel u raadiso oo mar walba waxa aad ku jirtahay midda ka sii fiican intaad sawirto aad aaddo oo aad u qaadato waxa riski ay leedahay hadday tahay riski nololeed hadday tahay riski dhaqaale hadday tahay riski inaad u qaadato si horumarkaas loo gaaro waa muhiim tallaabo kasta oo horumar ah oo aad samaynaysid waxay kaaga baahan tahay inaad ku dagaalantid macnaheeda physically maaha laakiin inaad xagga niyadda iyo niyad adeegga iyo maxaan ku idhahdaa diirad lahaanshaha focuska waxay u baahan tahay inaad ku dagaalanto oo aad maxaan ku idhahdaa aad waxayso marka waxaan mar kale idinku hambalaynayaa inaad yacni routine administration aad gasho meel intaad fadhiisato inaad qalin iyo warqadda aan maanta waxaa la iga rabay anigu xisaabiyaan ahaa ama xisaabaadkaan aqaano dakhligii maanta ee shirkadda ama hay-adda inaan calculate gareeyo dhigo miraa waa kan maanta intaasaa baxay ama kharashkii shirkadda inaan dhaho maanta intaasaa shirkadda buwaagtii buuxi bas meeshaas ku qor subax walba shaqada taas un moogtahay subax walba shaqo routine haddaad ku jirto caqligaagana ma korayo adiguna ma horumaraysid wax lagaa rabo waxay tahay subax walba inaad ku fikirto shaqadaas routiinkaas sidee loo soo horumari karaa maxaa ka maqan oo hadda lagu dari karaa waxa ka maqan oo hadda lagu dari karo oo qurxin kara horumarin kara macno iyo value dheeri ku dari karaahi waa maxay inaad ku fikirto mar walba ay kugu taagan tahay laakiin waa imaadaa subaxi registerkaana buuxiyaa maalin walba waa dhammaatay 30 sano soo socda meeshaadaad joogaysaa waxaa laga yaabaa marka dambe soo baraarugtana mar waqtigii kaa dhammaaday ama waqtigii kaa dhacay inay tahay kow marka shaqadaad haysaahay maalin walba subax walba inaad ku fikiraysid maxaa ka qurux badan oo lagu sii dari karaa oo qiimi dheeri u yeelaya shaqada iyo aniga intaba waa midda labaad oo mar walba noloshaada in la socotaan maanta maxaan baran karaa maxaan akhri karaa koorskeyn geli karaa part time ha ahaado full time ha ahaado lacagaad qaadataa si aad masters degree usoo socoto waxaa laga yaabaa shaqada inaad ka tagto inay kugu qasabto ama lacagtii shaqadaad qaadaysa in lagu yidhaahaya haddaad wax baranayso waxbarashada waaba kuu oggolnahay laakiin 50% mushaarkaagaad leedahay inta kale melig marka inaad maxaan ku idhahdaaye aad ka fikirto dadkii ugu horreeyey oo simad wax usoo bartay baasada qaarkeed jeebkooday ka bixiyeen ayagaa fundraising soo samaystay simad qaarkood waan xasuustaa tikitka basay ku kordhaysay wax kale ma haysanin maalintaas intaasay awooday tikid ay ka bixisay bas inta kale ayagaa soo rays garaystay markaasaa markay waxbarashadii soo dhammaysteenna ay ku soo noqdeen macadku ay ka bilaabeen shaqo ma ayan dhihin mar annaga tikid walba naga bixiyay shirkad hebelaaba lacag ka badan na siin karteen maan iska tagin raggaasi maanta ragga u qalma ragga u dhigma ee shirkadaha joogaan maanta waana ka lacag dhaqaale badan yihiin waa ka